Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan dhiganaa maanta Nel set. Nel set waxaa la dhahaa MPT set. Urur badan baa la dhahaa. Ururka maran sida loo qoro sumadaha loo yaqaano. Nel set waa urur maranya. MPT setna waa loo yaqaanaa. Saasa loo qoraa. No element baan dhahnaa. Waa waxaanan haysan waxba yaa la dhahaa maxayna element. Haddaan dhaho iminka buugga buuggu indhana male dhegana male. Saa darteed waa MPT set. Urur maran weeji buuggu markaa. Haddaan dhaho ear, eyes iyo nose baan dhaho ida laftigeeda waa bilaadanka waxba saa way leeyihiin laakiin buuggu male. Markaa nail set waa urur maran. Labadaas sumadood buu leeyahay. Marna kaabaad dhihi kartaa, marna kanaad dhihi kartaa. Labadaas sumadood waa loo qaataa. Tusaale haddaan dhaho 1 ilaa 3 aan qoro sidan aanu qoro MPT set ma ka mid ba intan haa wuu ku jiraa. Maxaa yeelay had iyo jeer MPT set is a subset of A is a subset of MPT set baa dhahnaa. Waayo waxa ay raacayaan nothing element baa ay raacay. Maxaa yeelay had iyo jeer wuu ku jiraa MPT set had iyo jeer wuu nagu jiraa. Nothingna wuu nagu jiraya. Maxaa yeelay urur maran wuu ku jiraa waa 1, 2, 3 iyo nothing set. Afarta ayuu ka koobnaanayaa. Ayo nothing set is a subset of A. Had iyo jeer waa horma urur buu yahay. Waa MPT set is a subset of A baa dhahnaa. Saasa loo isticmaalaa. Net set is the subset of every set baan dhahnaa. Markasta wuu ku jiraa sumadana waa loo yaqaanaa. Waad fahantaan u maleynayaa. Halkan waa Real Matters Private School. Insha Allah waxaad ka baran doontaa dhammaan xisaab. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Raxmaan Raxiim. Waxaan dhiganaa subset iyo proper subset. Horma urur quman iyo horma urur ma quman aan dhiganaa insha Allah. Inta badan waa isku mid hal shay un bay ku kala duwan yihiin. U fiirso tusaalahan B intaasaa la isiiyey. Ayee haddii cube-na la isiiyo intaas marka waxaan dhahayaa B waxay ku jirtaa maxayna cube bay ku dhex jirtaa. B is a part of maxaan dhihi Q. B-du waa qayb ka mid ah Q-da. Waayo waa 3 intaasna way ku jiraan oo 3diiba waa kuwaas laakiin labadaasaa dheer. Maxaan dhahayaa marka intaas ku dhex jirta. Marka maxaan dhahayaa B is a part of Q ama waxaan dhihi doonaa B is a subset of Q-na waan dhihi. Marka intaan dhaho party subset baan ka dhiganaa. B is a subset of Q baan dhahnaa. Sumadeeduna waa sidan B haddaan intaas sumadeeyo sumadahaan aan u qoro sumada loo yaqaano subsetka waa B is a subset of Q baan dhahayaa. Waa ka sumadaasa loo yaqaanaa subset. Marka subset la sheegayo sumadaasa la sheegaa. B is a subset of tusaalahan haddaan ku weydiiyo imika every element in B is also present in Q. Waa sidaas intaa labadooduba way ka wada sinaanayaan proper subset iyo subsetka laakiin hal shay bay ku kala dugnaan doonaan insha Allah. Waan dhiganaa imika haddii la dhaho intan sheeg A and C is intaa la siiye D-na intaa la siiye labadooduba way isleeyihiin oo waa equal. Marka C is a subset of D ba mise maaha ayaan la weydiiyey marka hore. Waxaan dhahnaa C is a subset of D. Ku jira waa markuu subsetka yahay. Waxaa adiga arkaya markaa C is a subset of D baan dhahnaa. Laakiin shayga kaliya ay ku kala duwan yihiin proper subset iyo subsetku waa intaa weji. Hadda every set is a subset of itself baan leenahay. B itself Q is iyada laftigeedii. B waa iyada laftigeedii. Q waa iyada laftigeedina wuu yahay. Hadda haddii la weydiiyo proper subset. Proper subsetna iyo subset in yar bay ku kala duwan yihiin. Ka hore waa iskaga mid. Maxaa yeelay saddexaasna waa halka maxaan dhahnaa B is a proper subset of Q baan dhahnaa. Sumada loo qoran waa sida calaamadda hoostoon baa ka hadhaysa. Sumadaasa loo yaqaanaa proper subsetka. Calaamadda hoostoon baa hadhaysa intana waa iskaga mid laakiin hal shay ayay ku kala duwan yihiin. Tan hoose intaa waa inuu qasab waa inuu wuxuun dheeraadaa. D iyo Q waa inuu wuxuun dheeraataa. Laakiin kii hore isku mid xitaa hadday yihiin waa caadi bah subsetka laakiin proper subsetka waa inuu wax dheeraadaa. Tusaalahan hoose intana waa u akhri kartaa dad runti kan ma saxba waa khalad baan dhahnaa ise maxaa yeelay waa inuu wuxuun dheeraadaa. Markaa difference-ga u dhexeeya labadooda waa intaa. Waxay ku kala duwan yihiin waa intaa weeyi iyo powerka marka la sheegayo waa inuu at least wuxuun dheeraado weji. Marka waa markuu proper subset yahay laakiin markuu subset caadi buu ahaa si kalena waa loo akhriyi karaa. Maxaa loo akhriyi karaa
Q baan dhihi. Q is a super B baan dhahayaa. Super proper subset baa loo akhriyaa ama subset yaa loo akhriyaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.